Marxaba, maxaad ka taqaanaa xiriirka ka dhexeeya sharciga iyo bulshada? Sharciga waxaa lagu qeexaa inuu yahay qawaaniinta hagaya nolosha dadka, isla markaana habeeya xiriirka dhexdooda iyo xiriirka ay la leeyihiin dowladaha iyo laamaheeda oo dhan iyo sharciga ayaa sidoo kale qeexaya ciqaabta loo dejiyay kuwa sameeya xadgudubyada ama kuwa ku guuldareystay inay gutaan waajibaadkooda. Waxaa lagu qeexaa inay yihiin koox dad ah oo ku wada nool dhul gaar ah si ay ugu wada xiriiraan dhexdooda xiriirka bulsheed iyo mid dhaqameed, qaab u suurtagelinaya in mid kasta uu gaaro danihiisa iyo ujeedooyinka uu ka leeyahay nolosha. Sharciga waxaa saameeya bulshada iyada oo sharciyada loo arko inay yihiin jidka ugu muhiimsan ee rabshadaha lagula dagaalami karo looguna yareyn karo bulshada dhexdeeda. Asal ahaan, sharciyada kama imaan meel cidlo ah, balse waxaa loo maraa waxa xukuma bulshada sida caadooyinka, dhaqanka, diinta iyo wixii la mid ah. Waxyaabahaas oo dhami waxay gacan ka geystaan kobcinta shuruucda iyo isu dhoweynta bulshada iyo sharciga. Sidaas waxa ay ku noqonayaan kuwa soo dhoweeya oo aqbala